بعد السلام وحنا هذا أولية إلهي وصل فكري إن المحل من بعد ما النبأ صعنا الشيء كم يدري الشيء كنوش أو في محل وحكروا هذا القيام وتجي قبل عوضة الحين كوين كسرتي في شركة سلام أبصاره ترتكز مرلبات وحن سلام وسوي شيء يا أما رياشة حافظة تجربة جوتها هي تنظم مقل ولبد كي هي عاقل عمر عبدي ورسالة وحن كلام سلام يا مرت شرفته كسر بشيء الرجل مربع iskugu jirta haddii aan intaa ku dhaafo salaanta horta ururkan waa igu horreeyay faahfaahintiisa laakiinse waxaan jeclaystay bal inaan annagu reewajaal ahaan dhinacayaga aanu iska yaro hadalno horta bishii sagaalaad bay ku beegnay markii dhalinyarada wajaale ay isxilqaantay inay magaalo ahaan waliba xaafad ahayn ay iyagu u kulmaan markii dhalinyaro ahaan wajaale aanu isxilqaannay bal inaan anagu urur samaysano intaanan magaalooyinka kale gaadhsiin waxaan ka howlgalnay oo fikirkaasi ku dhashay nin naga mida dhalinyartayada ka mida ayaa aniga ila yimid oo yidhi waaniyo waxa fiican inaynu dhalinyaro ahaan is aragno kadibna fikirkaa waan qaaday dhowr dhalinyaroo kale ayaan gaadhsiiyey iyaguna sidoo kale way ila qaateen iyadoo hawshu sidaa oo meeshaa noo marasa oon dhowr bilood weliba xeer aanu gaadhnay inaanu annagu xafiis furanno oonu iska bixinno kiradiisa xataa ururkayagii magac baanu la baxnay laakiin magac baa ka dambeeyey waxba la sheegi maayo ururkayagaasi wuxuu ahaa bal intii dhalinyaro ah ee xaafadda ku nool in aan isku keenno intii karaankayaga ah ayaa waxaa dhacday habeenada ka mida inuu soo garaaco mustafa cabdiqaadir uu igu yidhaahdo iyo fikraddaasaan wadnaayo ka warrama runtii waxaan moodayba fikradayadii hore sii haysanay inaa laga daba qaaday aad iyo aad baan ugu farxay marka maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaanu qayb ka nahay ururka magaciisa la yidhaahdo samawadaag siduu walaalkaygii uga horreeyeyba tilmaamay ujeedooyinkiisa iyo wax waliba uu dhameeyey laakiin se haddaan ku yaro noqdo waxa weeyaan ururku waa urur dhalinyaro laakiin se haddana waa urur la wada leeyahay ururku wuxuu hawl ka qabanayaa inuu qabyo tiro baahiyaha deegaanka xaafadda haddii ilaahay idhaahdo taasina waxay u baahan tahay kharash wax walbana kharash buu baahan yahay markaasi waxaan jeclahay innagoo isku duuban inaynu ka howlgeli doono insha allah waxba hadalka kusii dheerayn maayo oo waa la iga dambeeyaa waxaan kusoo gabagabeynayaa dhammaantiin waad mahadsantihiin